waxa uu ahaa safar saacado badan qaatay waxaana ka baxnay magaalada Beledweyne. safarkan ayaa ahaa mid ururka midnimada gobolka Hiiraan biyo ku gaarsiinayaan dadka ku dhaqan deegaanka Barbarcad oo qiyaastii 40 kiiloomitir dhanka waqooyi ka beegan magaalada Beledweyne. intaan wadada sii soconay ayaa indhihiga waxa ay qabanayaan dhulkayma ah kuwaas oo dhirtu ku taal yihiin kuwa qalayl ah halka xoolaha nool ay dhibayaan socodka maadaama dhulka ay ka jirta abaar baahsan taas oo saameyn ku yeelatay dunyada iyo dadka. waxyaabaha aan la yaabay markii aan tagay tuulada Barbarcad ayaa waxaa ka mid ah caruur yar yar iyo haween cagada haysta kuwaas oo fadhiyo geedaha hoostiisa. markii aan la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in ay yoomi yihiin isla markaana awoodin in biyo ay doontaan maadaama deegaankaasi ka gureen baraagihii kaydin jiray biyaha xilli roobaadka waxaana deegaankaasi booyada biyaha ay ka maraysaa lacag dhan $100 halka kaliya ee biyaha deegaankaasi u dhow ayaa waxa ay yihiin deegaanka Ceel Gaal oo qiyaastii 30 kiiloomitir u jirto tuulada Barbarcad balse dadkaasi ayaa ah kuwa aan haysanin gaadiidka biyaha ku doona lahaayeen. ururka midnimada Hiiraan ayaa 3 booyadood oo biyo macaan ah waxa ay gaarsiiyeen deegaanka Barbarcad waxaana lacagta biyo dhaaminta ururku ku sameeyeen waxa soo sadaqaystay Cabduqaadir Sheekh Muumin gudoomiyaha deegaanka Barbarcad oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in deegaankaasi ay ka jirto xaalad bini'aadanimo. waxaan rabaa markii annaga waxaan nahay dadkii u dhashay gobolka Hiiraan maamul baan leenahay maamulka wasaaradda biyaha wax kama aragno wasaaradda waxbarashada wax kama aragno wasaaradda caafimaadka wax kama aragno dadkaan horta waxaan isleeyahay haddii doona waxaan ku codsanaynaa markii inay dadka u gudmadaan inay baahidaas aan ka hadlaa ay wax ka qabtaan hadda waxa degdega oo ugu daran waa biyaha iyo baahida haysata dadkaas ceel ma haystaan matoor male ceel riig waxa noo xigo midka ku yaalo Coomaad iyo ka heese ka qabno 40 kiiloomitir loo soconaya dadkaas marka meeshaas ay ku dhibaatooyin waxa ku codsanaynaa markii hay'adaha iyo maamulka iyo jaaliyadaha reer Hiiraan inay dadka gurmad la soo gaaraan deegaanka dhammaan waxba isma dooriyo kulli waxa uu isdooriyo labaan galbeedka matabaan oo dhan waxa uu isdooriyo male. gudoomiyaha ururka midnimada gobolka Hiiraan Cabdi Muumin Cilmi Cabdi Xiish iyo xubno ka tirsan ururka ayaa hay'adaha samafalka ugu baaqay in ay wax u qabtaan dadka deegaankaasi ku dhibaataysan. halkaas markii aan nimada waxaan ku aragnay wax yaani maaragtay aad aan ugu naxno kaasoo ah in dadkii ay caagag diirgaana geeda la hoos fadhiyaan ayadoo waliba aysan jirin gaari dameero ay ku qaataan caagagtaas ayna ay sheegan markii aan wareystay in xaafadahoodu ay xoogaa ay fog yihiin diirgaankaas ama 20 lahaasna ay gacanta ay ku qaadan rabaan runtii aad aan ugu naxay. waxaan isku daynay inaan gaari dameero aan kireyno oo dadkaas biyahaas gaarsiiyo haddana waa ka waynay. waxaan aragnay kaliya kuwa fuustooyin ay saaran yihiin oo ayagaba dad maaragtay baahan biyo u soo doonay. run ahaantii meeshaas waxaan geynay 3 booyadood oo aan wakiil ugu ahaynay walaalkii Cabduqaadir Sheekh Muumin sida booyado horay oo magaalada u seenaba aan wakiil ugu ahaynay biyo dhaamin soo gaarsiinay deegaanka Barbarcad oo u dhow Jiracle runtii meesha markaan biyaha soo gaarsiin waxaan ku aragnay xaalad bini'aadanimo runtii aad u liidato. ururka midnimada Hiiraan mudooyinka ugu dambeeyay wuxuu biyo dhaamin ka sameeyo magaalada Beledweyne marka saaka waxaan soo aadnay duleedka magaalada Beledweyne deegaanada u dhow meesha hadda aan joogno Barbarcadna waxaan ku aragnay runtii wax runtii aad iyo aad looga naxo. hay'adaha samafalka iyo maamulka gobolka Hiiraan waxaa ku codsanayaan dadka masaakiinta oo biyaha u baahan oo baadka u baahan inay caawiyaan oo soo gargaaraan. ma arag meel biyihii la shubay adigoo taagan aan la arkin runtii waa meel xaalad aad u adag hal qodob aan ku baaqay hore qodobkaas wuxuu noqonayaa hay'adihii markii badarku noo baxo oo raashin helno mucaawanada keeni jiray markii uu roobnada aan biyaha soo dhaamin jiray waxaan leenahay leedahay ka aqbali maayo. isku duwaha wasaaradda tamarta iyo biyaha ee gobolka Hiiraan maamul goboleedka Hirshabeelle Awil Maxamed Jibriil ayaa sheegay in dhammaan deegaanada gobolka Hiiraan ay ka taagan tahay biyo la'aan wuxuuna baaq u diray wasaaradda tamarta iyo biyaha ee maamul goboleedka Hirshabeelle iyo tan dawladda federaalka Soomaaliya. maanta gobolku wuxuu u baahan yahay deegaanada iyo tuulooyinka hoos imaaday in ummadda bulshada la samata bixiyo waayo dadkii ma haystaan raashin ma haystaan hooy ma haystaan nolol ku filan ma haystaan biyo waxa ugu daran farastan waa biyo
wasaaradaha ku shaqo leh waxaan ka codsanayaa si degdeg ah haddii ay arkaan baaqaan inay uga jawaabaan madaxda iga saraysan waxaan ka codsanayaa oo gudoomiyaha gobolka hiiraan mudane yuusuf axmed xagar dabageed mudane gudoomiye fadhiga ka ummadda dhexda xiro ummadda waa tabaaleysan tahay ummaddu way baaba'san tahay 40% ay maraysaa xilligii waxa waaye oo macnaha wariyaa waxaayo lahay waa ganacsatada reer hiiraanada ay kuna jeeb ka furaan maxamed cabdi baadil Somali Cable TV magaalada Beledweyne